السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين كسر داود وربحين كسابسن دلك برازيل. دلك برازيل وودن كوجوين كونفور أمريكا. وحاول حدود لو ذا قاعد ما ودمدا كيالا كونفور أمريكا مركل غيره ودمدا إكوادور يتشيلي. عاصمة ودن كوا برازيل. ودن كوا حلو قبيلة لحية لواتن معمول قبلات يو حل قبل أو عاصمة أو فدرالة. دلك برازيل وحاول عن كيه هي كيمها أمازون أو دوركا أما كيمها وجوب اللارن الدنكا. waxaana mara webiga ugu biyaha badan adduunyada waxaana jooga xayawaan aan laga helin adduunyada inteeda kale sidoo kale waxa ku nool anaconda miska ugu weyn adduunyada waxa kale oo ay dadkaasi caan ku yihiin waxa weyn cawaanka adduunyada ugu faraha badan leh wax dharo ma xidhan waa sidii ay ku soo dhasheen waxa kale oo jira caan ku yihiin jaaska ama qoobka ciyaarka samba oo markasta oo dabaaldeg ama xaflad ay jirto lagu soo bandhigo Brazil sidoo kale waxa ku yaala xuduudada adduunka kula yaabka badan leh waxaana kamid ah xuduudka kala qaybiya dalalka Uruguay iyo Argentina iyo Brazil waxaana kala qaybiya webi saddexda dalba dadka ku nool Brazil waxa lagu qiyaasaa 202 milyan oo qof waana wadanka shanaad ee ugu dadka badan adduunyada boqolkiiba 47 waa dadka cadaanka ah boqolkiiba 43 waa dadka maarinka ah ama iska dhalka ah boqolkiiba 8 waa dad madow in soo hadhayna waa Aasiyaan iyo muhaajiriin kale dhammaan wadamada jaarka ah oo dhan waxay leeyihiin xiriir aad u fiican inkastoo ay Argentina isnacib yihiin dhinaca kubadda cagta laakiin waxay leeyihiin xiriir fiican dhinaca ganacsiga sidoo kale wadamada uu gumeystay Boortaqiisku badanka xiriir fiican ay leeyihiin qarniyo waxay lahayn xiriir fiican oo dhinaca ganacsiga ah Mareykanka laakiin sanadahan Brazil waxay darbiday wadamo kale oo ay ka sii jeestay Mareykanka markaan ka hadlayno dhinaca wax soo saarka waxa ugu badan ee uu soo saaro dalka Brazil waa kafeega waana wadanka ugu weyn oo soo saaro kafeega 150 sano ee ugu dambeeyay waxayna nasiib u heleen in ay Brazil ay ka mid noqoto suuqa afraad ee ugu weyn baabuurta caalamka sidoo kale waa dal dhoofiya diyaaradaha gawaarida dharka kabaha birta iyo cabitaanka iyo liinta dalka Brazil ayaa wax dhoofinta caalamka kaga jira darajada 23aad dalka Brazil waa wadanka labaad ee dhinaca garoomada diyaaradaha waxa ka horeeya Mareykanka oo kaliya waxa uu leeyahay garoono waaweyn oo aad u mashquul badan ku dhawaad 20 milyan oo rakaab ah ayaa sanad walba isticmaala garoomada Brazil dhinaca diinta waxa u badan ay haystaan waa diinta Kiristaanka Katooligka dalka Brazil ciyaarta ugu caansan waa ciyaarta kubadda cagta waxa uu koobka adduunka ku guuleystay 5 jeer markii ugu horeysay ee koob adduunka ku guuleystaan tiimkii ka socday Brazil waxay ahayd 1958 waxa ku xigtay 1962 waxa ku xigay 1970 waxa ku sii xigay 1994 waxaana ugu dambeeyay 2002 sidoo kale mar ayay martigeliyeen koobka adduunka waana sanadkii 1950 iyo 2014 dalka Brazil ciyaartoyda caalamka caanka ka noqotay ee ka soo baxay waxa ugu horeeya boqorka kubadda cagta waa Pele sidoo kale waxa ka soo baxay Ronaldo Roberto Carlos Romario Ronaldinho Kaká iyo Neymar oo kamid ah ciyaartoyda hadda ugu waaweyn dhinaca ciidamada Brazil waa wadanka koobaad ee ugu awood badan leh Koonfur Amerika iyo wadanka 17aad adduunka oo dhan waxaana diyaar ah oo shaqeeya 330,000 oo askari halka 1,800,000 oo askarina yihiin ciidanka kaydka